commenti oo lagu soo qoray TikTok oo ahaa qof wuxuu soo qoray tan u dhan maxaa lacagtiis looga bixinayaa ma dhalayso ma dhasho waaye qofkii hadalkaas ku hadlay waa is og yahay anaga hadaan ogeyn laakiin ilaahay uu og yahay gabadhan way og tahay hadii maluuga saa isdaysid ilaahay ayaa ku jeeda xisaabta ku darso wax walba aad sameeyay ilaahay uu og yahay waa u jeeda qofkan markuu ku dhahayo ma dhalaysaa tahay ama ma dhalaysid isaga garantiin miyaa inuu dhalaayo because haddii aad hore u dhashay xitaa waxa laga yaabaa inaad dhalin dambe aad dhalin sababtoo ah hadalada qaar ilaahay wuu fiiriyaa shay walba ilaahay ayaa qadar u leh ilaahay ayaa qof walba wax siiyo eedan waa gabar yar waqtigeeda ku jirtaa dib ma lahan ilaahay aad iska siinayo waayo sababtoo ah waa gabar yar duq waay maanta wallahi waa duq waa dhalmo go'is waa saamal lahay waa gabar yar waqtigeeda ku jirta bis waxa u dhiman qadarta waqtiga ilaahay waqtiga eebe oo si lahay ubad bis ayaa u dhiman waqtigeeda ku jirta duq ma ahan hadii ereygaas adiga soo fagtay kulli ilaahay u toobad keenaya kulleena xil walba qofka iimaanka la horta mar walba ilaahay wax xasuusnaana qalbigiisa mar walba qadar walba ilaahay inuu haas gacantiisa ku jirto ayuu ogaana marka waxaan rajaynaa soo dhawaada buto janaal soo dhawaada buto janaal waxaad soo dhawaataan buto janaal waxaad soo dhawaataan buto janaal soo dhawaateen buto janaal kusoo dhawaada buto janaal subscribe like and share بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته داود اللي انت سلامتي ملول بادونك كجوجتي maxay leeyahay marka la isku soo noqdo waxaan wanaagsan waa aniga oo magaciisa Ibrahim Buto waxa daawanaysan Buto janaal ku soo dhawaada ku subscribe subscribe noo saar gambaleel fur aad ma santahay dad xaabtiin hore aan ka bitaa please video like noo saar waa ma santahay hadii oo fikirku soo dhaco ra'yigaaga xaq commenting walooda wixii ra'yigaaga ah noo soo qor aniga taxkiinayna okay aad waa ma santahay marka waxaan idin wado waxay tahay video saa hore wax ciwaanka ku soo aragteen qaaliladan oo loo gafay sabab loo gaf maxay tahay wax qof ayaa waxay dhaheen macnaha adiga oo sidaan ah oo caato ah oo hadan ma dhasha aasiita oo lacag badan laga sii bixinayo ka waran dad ayaa soo dhahay subhanallah war waxa ilmaha ilaahay ayaa dad siiyo ilmaha bin aadan qof ma siiyo ilaahay qofkoo doonan siiya qofkoo doonan ma siiyo laakiinse amar alla wato ina qof oo walaashaada ina u gafti waxaas wax laga fiican yahay dhilaa qofta walaashaada amarku waa amar waa wax qadar waa gabar yar 20 jir ah bili gabar duqmana qanin inta nin iska waxda waa wax yar adima og inay dhaleen in kala xaq rabbi ma kimaade horta bin aadin sidoo hor gafafko zaid u badiyaan maalmaha wiil baqaasatan waxay rabaan iska sheegan war astaghfirullah iska gabadhaas nafis ka dalbo ilaahayni dambi dhaaf weydiiso waa gaftay sababtoo ah ilaahay unkiisa ayaa u gaftay ilaahay macnaha wax walba asiga ku shaqo leh shaqada ilaahay ayaa u gaftay kabarana daadhay ma dhasho waay gabadhaas adima og qof bilaahay wax si ay waqtiga ilaahay wax siinaya ayaa dhiman bis ilaahay waqtiga u qadar ayuu siinaa qof walba kaliya ma qof walba arin ilaahay wato ayaa soo gudgashanay binaadino horta ilaahay ka cabsada marwalba waxa fiican in rabbi laga cabsado iimaankiina marwalba aad ilaalisiin okay walaashan khaaladan oo ka hadlayso arintaas qofkii dhaay sidii wax u dhicin waa kana miskiin ibma lahan anagana u duceynayna inuu ilaahay uu khayr qabo Allah siiyo oo kan waqti ay ku imaadaan waqti al qadareen ku imaadaan ee ku imaadaan bin aadinka waqtiga rabo ilaahayna uu qofka rabo siina qofka rabo ma siiyo horta taas ku xisaabtama ma fahantiin marka dadka aqliga leh ayaan hadlooya oo wax fahmaya ilaa qofka aqli leh wax loo sheega wax fahmaya okay baakana walaashin khaladan aan daawanayna sidee wax u jiraan ayaanu sheegay insha Allah ee daawasho wacan hadalkaas wallahi aad aan u xumaaday qofna lama sheer gareenin sababtoo qof uu la sheer gareen maxay qofkaas uu iga xanaajiyay habeen igu soo dhacay wallahi ina been idii sheegin waan iska ooyay sababta ugu weyn wax kala ma aysan ahayn qofkaas wuxuu igu caayay qofkan markuu ku dhahayo ma dhalaysaa tahay ama ma dhalaysid isaga garantiin miyaa inuu dhalaayo because haddii aad hore u dhashay xitaa waxa laga yaabaa inaad dhalin dambe aad dhalin sababtoo ah hadalada qaar ilaahay wuu fiiriyaa qofkaas aad baan uga xumaaday dhowr qofood hadda ka hor mar horena saas oo kale la isoo qorto ma dhashmiyaa horta aniga barta koowaad marka koowaad waxa aan la ooyay waxay ahayd ilaahay labadeena qofood ba inuu sameeyay asagana inuu sameeyay anigana sameeyay garantiina uma haayo inaan aniga dhal dooni inaan dhal dooni asaga garantiin uma haayo because ilaahay oo kaliya ayaa og ani inaan dhalaayo inaan dhalaynin haddaan dhalo alxamdulillah haddaan dhalin soma alxamdulillah sababtoo ah waxa aaba laga yaabaa maanta ilmaha baryayno dad baa iska baryaan ilaahay ilbisi laakiin ilmahaas wax qaleeta noqon karo wax noqon karo haduu ka war cunug ka noqdo wuxuu ilaahay adduunka u nacab yahay inuu noqdo haduu noqdo qof dilo haduu noqdo qof qaniisa ana adduunka qaniisa u nacab haduu noqdo qof tuuga waxyaabo badan ma jirto ma fahanteen mararka qaar aniga marka waxaan dhahay ilaahay kuwaas inta dhali lahayd ilmahaas bay heelinbo laakiin ilmaha lagu duceysanayo waxa waa inay ahaadaan kuwa maxaan ku dhahday
ilaahay maaragtay wadada toosan ku marsiiyo wanaagsan kuga caasin kuwa in aabooda dilooyan ka siinayaan ma fahmaysan marka qofkaas waxaan ku fikiray aniga inaan cafin hadana markasta niyad waxa iska dhahaa mararka igu soo dhacdo waaya waxa istaa qaaliyo qofkaas macfi doonta because ani waxa dadka ayaan ka jooga iska cafiyo qof kasta hadii xataa maaragtay qofkaas dhibaato xun ii geystay laakiin qofkaas qalbigayga oo dhaawacay muhiimadeedana ma ahan inaan aniga ilmi helaynin inaan u ooyay ama aan ugu xumaaday laakiin waxaan u xumaaday in uu arki karo birito qoraalkaas uu soo qoray cunug jawaabtiisa uu noqdo oo ilaahay isiiyay taas uu wada sama waxa kale oo ku farxaa mar walba dad badan waxay dhahaan qaali waxa kugu roonay adoo cunug dhalay waxa waaye su'aashaasna way isweydiiyaa maalin walba waxaas dhahaa dad badan waliba boqolaal qof oo iskaranaynin ay ii soo qoran komitiyadooda marka qaar live dad ay igu sheegaan wiil asxaabna maalmooda ii sheegay markasta waxa la igu yani riyooda riyo ina wiil dhalay had koorna anaa ku riyooday anoo wiil dhalay marka aniga qofkaas waxa u baahanahay hadduu videogaygan arko inuu cabsi weydiisto haduu idho waa ka qaldamay iga raali noqo anuu dambiga kale ilaahay kama uusan gelin waa cafi karaa laakiin hadduusan arkin asaga u taalanaba eba ma cafin doono because hadalkaas oo soo qoray yaa isla hadalkaas ayuu awood ilaahay uu awoodaa siiya karaa mid kale dad jiraan bo inaa waxa laga yaabaa qofka soo qoray inuu yahay qof ilmaha necbo ani ilmaha aad u jecelahay dad waxay sameeyaan ilmahooda intay dhalaan ay god ku ridaan وعلم أما كدر حلال أفتو علمه ده واحد لقى في عيني لكن هدي أدم بيكش مرة أدم بينكش ولا في عيني صما anyway مركا هذا أقول حنا هذا قف كاس قفكو هاي بقى أدو هل قف هاي يدي هاي ندك كل الدوام قرار كاس دور قف أي سكر قرطة إنه يمجرنا لكن هذه كل حاجة قصدنا إنه فيديو وأشير جالسين سي أوقف كاس إنه أركو عفسي يسوي استهدى أنت أرد محكور هذا الكاس وقتي إن أركي جوابتي سي تنتهي ugu aadna igu soo qorweydo committee-gayga maxaan ku raaqaynaa aniga ku soo qoray cafi wallahi ina bay ku sheegeen ilaa aakhiro kuma cafin doono ereygaasna maalinta aakhiro ayaa iskugu imaanaynaa ilaahay noqda qofkaas ilaahay maalinta ilaahay maartay maxaan ku raaqaa hortiisa la wada taagan yahay ayaan rabaa inaan maxaan ku dhahaa maalintaas un kaliya is arko mid kale waxa laga yaabaa in adduunkan ku aragto ciqaabti aniga waxa iga sheegtay in adiga kugu dhacdo qofkii hadalkaas ku hadlay waa is og yahay anaga hadaan ogeyn laakiin ilaahay uu og yahay gabadhan way ogtahay hadii muuqa saa isdaysid ilaahay ayaa ku jeed xisaabta ku darso wax walba aad sameeyay ilaahay uu og yahay waa u jeedaa wuuna og yahay ilaa asaga ku khalqay marka waxa fiican in qof bin aadamku lagu xad gudbin qof bin aadamkani in oo ereyo waxyaabo qaar aan xamilaynin in la dhaho waa laga fiican yahay shay walba ilaahay ayaa qadar u leh ilaahay ayaa qof walba wax siiyo eedan waa gabar yar waqtigeeda ku jirtaa dib malahan ilaahay iska siinayo waayo sababtoo ah waa gabar yar duq waay maanta wallahi waa duq waa dhalmo go'is waa saamal lahay waa gabar yar waqtigeeda ku jirta bis waxa u dhiman qadarta waqtiga ilaahay waqtiga eebe oo sii lahay oo bis ayaa u dhiman waqtigeeda ku jirta duq ma ahan hadii ereygaas adiga soo faktay kulli ilaahay u toobad keenaya kuleena dadweyne idinka ma idin sheega mar walba ma fiicno ereyo xun in lagu hadlo afku waxa la badaa kelmad wanaagsan qalbigu waxa la badaa kelmad wanaagsan kelmadaha xumaanta oo caadada laga dhignaay ma ahan mid fiican waxa fiican mar walba in ilaahay laga cabsado toobada loo degdego xumaanta la iska yareeyo qofka bin aadamka in lagu xadgudbin dulmiga ma fiicno dulmiga waa xaraan dulmiga ma fiicno in ilaahay laga baqaa fiican mar walba waxa sameynaysa horta ku xisaabtan inuu ilaahay ku xisaabtama ilaahay ku jeedo maanta waa adduun bir waa qiyaam godal lagu gilna wax walba xumaan adduun aan ku sameysay waa laga jaasina cadaaba jiro janna jirto naara jirto marka waxa fiican in ilaahay laga cabsado waxyaabo xun oo laga tooba keeno min aadina aan meeshna soo joogo ma ogni caafimaadkii umsina caafimaadkii been sheegin marka waqtiga aan ka faa'iideyso qaab ereyada qaabka daran ay ku hadlaysan iska dhaaf ilaahay ka cabsado qof walaalka aan hada u guftid gacantaada ha oo socod xaalna qomrood iska dheh ilan khaladka aad sameeysid hada qofka cafis aad ku weydiisan ajra ka helaysa laakiin khaladka aad sameeysid dii aad ku taagnaatid ilaahay uu cadaaba waxaas marka ilaahay in laga cabsado farxil walba qofka iimaanka horta mar walba ilaahay wax xasuusnaana qalbigiisa mar walba qadar walba ilaahay inuu haas gacantiisa ku jirto ayuu ogaana marka waxaan rajaynaa inaad ogaado insha Allah meesha ayaan soo gogweynaa videoga oo jeedin sida qaabka daran walaasheen loo lahad insha Allah ayadana dib ma lahan waqtigeeda dhiman qadarteeda ayaa dhiman insha Allah ilaahay wax waasiin doona insha Allah aad iyo aad ma santii daawasho video waa daawatan aniga magacay Ibrahim waxa daawanaysa mid wajana waxa idin leeyahay hadda aan ku cusubtahay subscribe noo soo gambeeyo furaad iyo aad ma santahay video xigayaan oo bilaabana assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh